وإليه وهستر دارنا دارنكي مسكين وطبوتي magaalada berbera xarunta gobolka saaxil waa magaalo ka duwan gobolada Soomaaliland maxaa yeelay magaalada berbera waa magaalo xeebeed sanadkiiba 6 bilood ay tahay kulay loo eego dadka ku nool dabaqada sare waa kuwa ka xagaabaxa gobolada kala duwan ee Soomaaliland laakiin dadka danyarta ee aan awoodin inay ka xagaabaxaan magaalada berbera waa kuwa guryahooda hortooda ka sameeysta barande ama balbalo ay ka galaan xagaaga haddaba shacabka ku dhaqan magaalada berbera ayaa sida fiinta uga qayliyay xogayaha fulinta dowladda hoose Cabdikariin Aadan Cadde iyo duqa degmada berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin waxayna ka caawdeen in laga burburiyo goobihii ay harsan jireen xilliyada xagaaga iyo goobihii ay ku ganacsan jireen dadkana u badan dad danyar ayaa goobaha laga burburiyay waxay kala soo bixi jireen quutal daruurigooda iyadoo goobahaasi gebi ahaanba la burburiyay ilaa haddana aan meel loo kiciyo aanay jirin haddaba waa kuwan iyagoo amurahaasi ka hadlaya fadhinaya qoobadka uga soo saarayay qofkuruga uga soo saarayeen malcaamadooda iskuulkooda ku ilaalinayay in la iga dumiyay oo aanan wadana u dhan waxna u dhawan la iga dumiyay yaa maxay haytay ilaahay igu yaqaan ilaahay ma wax bilaadona maqnay jirin 6 biloodna abood sii mootay yahay yaan meel laba litirna waadan aan la isiinin yaa wali aan kaan sidii aan xashiishkina u qorayo oo dhaba ku saran xamaay sharciyan maanta malcaamadii iskuulka ay taxaankii la iga soo horiyay imika kuwa ay hoos joogan ay yihiin ay saacada imka lagu soo horiyay yaa qabadulmigooda shanta ii dhiganayo halkaa ii taagan oo shanta iskuulkii malcaamadii ay taxaankii yara lagu jiro labadba wixii ba lagu soo wariyay imika aan ka hoos taagan saacadaan hadlay shanta waxa ka biirin jiray gidaarka ayaan qowda daruurigooda iyo masaariiftooda iyo waxbarashadooda balcadooda maxay hayday tiigooda wuxuu beerkaasan ka bixinay ilaahay bay waa isku berbera qurux badan oo bilic leh oo nadiif ah oo bilaadada oo gaajoonaysa ayuu doonaya waxa weeye dadkii doortayna cidii qaar ba daba loo shidin hadda daba soo ma garan markaa waxa weeye ummadda la dhaqaa ee daaraha lama dhaqo ee laamiyada lama dhaqo ummadda la dhaqaa oo la kabaa danyarta iyo dhalinyarta bilaa camalka waa aragtaan nin bariisdoona maanta oo waxaa ku kabar yar fadhiya ama fadhiya inaad gooli yar ama meel bariis kala soo baxaya oo laga yaabo inuu 9 caruur iyo hooyadu afkayo ama islaan agoono 9 caruura qaar iskuulada ka bixisa qaar jaamacadda ka bixisa oo bartaa kala soo baxda Cabdishakuur muu garan u diyaar garee wixii dadkana ay kaga maarin lahaayeen halkan markay xil baana ka saaran waana mujtamacii soo doortay waa kuwa magacooda ka duulayo markay aan ka tahay waxa leeyahay inay lagu sheegi jiray Itoobiya alleena berbera haysa berbera waa kuwii qaxay ee tagay Hargeysa ee maayirka Hargeysa dhulka siyaasada loo sheegay ee TV-ga halaya markii laga duubay daawani waxa weeye ninka ummadda kasbanaya ee ummadda la xisala ka qaba aan ka umu galeedii anigu waxa leeyahay Cabdishakuur Malaaciid talisan ma haye maayir waa kula talanayaa oo dub isku noqo 20 golaha dagaalka la doortay codka ummaddu siisana dee waxa waa mooyayaaldi malaa'ig ba hayawe waxaan u malaynayaa meeshan waxa ka dhiman jeelkii loo jeerogaadeen ee ku yaalaynaatay godagteeda kaasuma ka dhiman berbera bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan anagu waxaanu nahay dad maatiya oo magaalada degan maxaan dhahay waxaanu deganayn ilaa iyo intii wadanka la soo galay oo dhan ilaa inta waxaanu deganayn meheradaha yarada maqaaxiyaha ee iska ciista ee masaakiinta waxa weeyaan baranda waa la hagaajiyaa bilicda waa la hagaajiyaa laakiin waxaan oo kale hagaajin maahay waa qaxoontiyahan dad qaxaya meel walba rid dukaanka yar rid barandaha rid geedka yar rid waabka yar kale rid
ka guura iskaga qax weeyaan sidan oo kale ma aha dhul safayn iyo wax hagaajintoona ma aha waxa weeyaan sidan anagu waxaan u aragnaa dee iskaga qaxa meesha xagaa baanu joognaa imika waaba qaboobo waaba haddii la ridana dee sidan oo kale ridis maaha waxbaa la gaabiyaa waxbaa la hagaajiyaa laakiin dukaanka baabii maqaaxida yar baabii kursiga qaad cadiirka ah ee foosha xun leh annagu halkaa foosha xun leh dad la mida baanu noo masaakiin baanu nahay cidina nooma shaqayso inaan nooma shaqeeyo inaan nooma shaqayso saddex carruuraan anigu iskuul ka soo saaro halkaas iyagoo bilaa jaamacad ayay joogaan waabkaa yar baan ku korinayay rid baa laygu yidhi maqaaxida yar iyo waabkaba waanigaa furfuraya kii kale docda gabadhii agtayda deganeed waa taasaa ka furfuratay anna iminkaa furfuraya markaa sidani silici weeyaane silican dee ilaahay noomu garana dad baa noo gartay maamulkaana noo gartay magaalada maamula cid walba ha ahaadaane maayirku haddiina baabiiyey cid miyaa laga waayay magaalada dhamma ma maayirka waxa weeyaan innaga waa nala baabiiyey xogayu saaka halkaa waddadaasi soo maray waxa weydiiya baanu isnidhi waanu joojinay inanta yar baa saa gaadhigiisa u taabatay wuu u soo degey yacni ninkii askariga ahaa oo ayaa u soo degay inanta yareed buu doonay inuu soo walaalaadiyo ilaahaya rag baa uga baxoo ka reebay ma fahantay wuu noo xoog sheeganayaa cadaalad xumaanna haysata xogayaha noo xoog sheeganaya xogayaha iyo maayarka ayaa noo xoog sheeganaya maatidii buu xidhxidhaya ka hadle waa la dilayaa ninkii halkaa dhowdhowlayntaas gurigiisa ugaasaa looga dabagoy 3 baa isku jabiyey saaka waa la qaaday macaan buu qaba waa sakaraad 200 jeer baa loo yimo la dumiyey meeyay naafataan soo qodo inaan macal kuraasida aniga weyn inta gebigeeba ku shubaabaan doonay aan iskuba sababtoo ah waa ciil waxa weeye 5 sano inantu iga waalayd 5 sano waxa laala waxaanu hayay xoolo malihi maal miyili malihi miyi xoolo igama yimaadaan gacal malihi waxa weeye isaasay igu kaliftay in aan naafatada soo qaato waxa aan darteed waayo dad nin bacad isu dhigay oo goojo mana dawarsan karaay damaatiya dad la qaxiyay dad barakacay dad 22 nin cuneen dad maxay haytay annagu maxaysatayadii waxaan cunay 22 nin maayarka qura cambaarta lama saaray way wada qabaan waxa weeye 22 nin baan cunay inta magaalada inta ka tira leegadina daar bay ku xidheen cooshadaana ku jirayna way nagu dumiyeen 22 ka nin anaga way noo dhayin madaxda magaalada nooma kala soocona والله يسوكها يرها تكون ردني ونبابينا يا أنا سوى قاعدة دولتي أنا سوى قاعدة حكومته أنا كسوى قاعدة رصاصة أنا كسوى قاعدة نقص عتيه هوسه هذا بربرة واحد لقوها يا دمين سيادة وهي واحد dadku ma adkaysan karaan barendalaan saddexda bilood in qabowga marka laga dhaafo inta kale waa kulayn waxa loogu talagalay ee ka hortagaya waxa kale oo ka qayb qaadanaya in warshadii bareefadka ah sida leydhko kale ee umadu lahayd oo leeyri waa bareefad ay hadana ka qayb qaadanaya si loo dumiyo loo oranaya ka jara taasina mid cadaalad ma aha sidaa darteed waxaan ku codsanaynaa in xukuumadda sare ay naga soo gaadho waxaan ka hadlayaa waddanka sidan loo galay baan ka hadlayaa maayirku u galay wixii uu la soo baxay doone oo dadka uu hayo isagaa sheegaya inay dadkani meel alaali meel ay degaan ma haystaan maqaaxiyahan aad arkayso 7 qof baa laga biiliyaa heebo dhan baa waxaan u soo masaayiftada ma fahanti markaa maayirku wuxuu noo qorsheeyey uu noo hayo eerday isaga unbaa keenaya waddanka meel alaaliya waddadaa imika meel aad koobshaa ka cabta male madaxweyne waxaad naga soo gaadhaa maamulkan dawladda na haysta ee waddankii ka kacabarsan yareedaan deganayn ee aanan meel kala haysan madaxweyne naga soo gaadho oo naga qabo waxa weeye meel aan istaagno ma haysano meherada hayagii mar haddii la baabiye meel aan istaagno ma hayso dadkii masaakiinta ah meeshii loogu shaqaynayay inuu meel loogu shaqeeyo lama hayo dee ma isagaa waxna siinaya isku soo wada duuba hooyooyinka waxaa ku jira qaar haysta ciyaal aad u tiro badan kuwaasoo agoona gebi ahaanba aanay jirin meel ay u shaqo tagaan goobahan laga burburiyena ay ahaayeen goobahay kala soo bixi jireen quultal daruurigooda ay ku noolaanayaan maalinkaasi xamse garaad warbaahinta madaxa bannaan berbera